tuuganimadu iyo in wax la xado adduunyadu waxay ka tahay ceeb faxshir iyo lama arkaan laakiin inagu Soomaalida xageena waxay ka tahay wax iska caadi ah oo aanan la yaab ahayn haddaba taa maxaa kugu daliila intaynu gudagalin muuqaalku waxaan ka codsanaynaa inaad noo share garayso oo meel fog aad noo gaarsiiso juwaanadan meesha daadsan ee aad arkaysaan waxa lagu qaatay malaayiin lacag ah si dadka wax loogu qabto laakiin wax qabadkii malaayiinta lacagta lagu qaatay wuxuu noqday juwaanadan safka la geliyay meeshan aad arkaysaan ee juwaanada la safay waa degmada Doolow ee gobolka Gedo sababta iyo ujeedada juwaanadan meesha loo safayna waxay tahay in lagala joodo ama laga wado biyo xireen maadaama sanadkii hore uu webiga Jubba aad ugu fatahay gobolka dhibaato badan oo u geystay sanadkaana ay roobabkii bilowdeen oo laga yaabayo sidii sanadkii hore dhacday iyo si ka daran inay dhacdo oo ay fatahaado dhacaan ayaa waxa la soo qaatay mashaariic ah in la sameynayo biyo xireen sida degmada Doolow looga ilaaliyo in ay biyaha galaan ama webiga uu ku soo fataho biyo xireenkii isaga waxa lagu qaatay malaayiin lacag ah laakiin maxaa la sameeyay sidaad arkaysaan waxa la soo gaday 200 oo juwaan oo faaruq ah oo maran deetana waxa la tagay webiga jiinkiisa waxa laga soo buuxiyay ciid ama carro sidaad u taqaanba ayaa laga buuxiyay afka ayaa laga xiray deetana line ayaa la geliyay oo webiga jiinkiisa ama webiga jirjirkiisa ayaa la dhigay malaayiintii lacagtii lagu soo qaatay webiga Jubba ee degmada Doolow lagu sameeyo biyo xireen meeday xagee ka baxday yaa qaatay lacagta ayada ahayd yaa cunay lama garanayo waa tuuganimo cad inagu Soomaalidu waynu aragnaa waxaynu leenahay waa la xaday waa la lunsaday waa iska caadi oo wax caadi ayay noo tahay laakiin xaqiiqda marka laga hadlo wax caadi ma ahan waa faxshir gaar ahaan waxay arrinkani ceebtani taabanaysaa dadkii u xil saarnaa degmada in ay waxa ka sameeyaan tusaalaha labaad ee ku siinayo waxa kamid ah toddobaadkan waxa laga hadlayay dawladda Soomaaliya ayaa waxay xaday raashinkii ciidanka gaar ahaan ciidamada kumaandooska ee danab raashinkoodii ayaa la xaday waxaana la gaaray heer Mareykanka uu dawladda Soomaaliya ku yiraahdo inaad raashin xadeen qirta oo adinka sheega oo afkiina ku qirta inaad wax xadeen hadii kale hal xaba inaga ma bixinayno qofka raashin xaday xogaha yar bariis ah xogaha yar sonkor ah xogaha yar waxyaabo nooca qof xaday ma dhaqaalu deynaya waa meeshii ugu hooseysay ee ugu liidatay weey hadii raashin aynu xadnay maxaa kale aynu deynaynaa mar walibana raashinka ciidanka saadkooda iyo waxa ay leeyihiin har iyo habeen waa la xadaa laakiin kuwan maadaama ay yihiin ciidamada danab ee ay gacanta ku hayaan qolooyinka Mareykanka ayaga ayaa dawladda ku qasbay in ay qirato hadii kale waxay yiraahdeen nimayahow wax aan bixinayno iyo wax kala midna male hadii kale adinka afkiina ku qirto oo waxa tiraadaan raashinka waa la xaday haddaba taa miyaysan ahayn faxshir iyo ceeb miyaysan ku ahayn dawladda mas'uuliyiinta iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee anaga aynu ka mid nahay dhamaanteen hadii aynu nahay ummadda Soomaaliyeed ceeb iyo caado male ayay nagu tahay inaga ayay sumcadeena ku tahay ceeb aad u weyn in raashin la xado mashaariic yar oo la soo dhiibay ama biyo xireen yar juwaana in lagu guro sawir laga qaado maxaad ka sawiranaysaa juwaanaad ku gurtay ciid carrad juwaana ka buuxisay maxaa wax qabad oo aad sawiranaysaa Soomaaliya marka cid waliba oo mas'uul qabato cid waliba oo xil raadinayso cid waliba oo xil doonayso cid waliba oo xil qabato waxay raadinaysaa qofka xil qabto wuxuu raadinayaa wuxuu xado wuxuu dhaco wuxuu meesha ka qaato waxbuu raadinayaa ma jiraan 99% ma jiro qof Soomaali xil ka raasanaya ama xil ka hayo oo doonaya dalka iyo dadka iyo deegaanka inuu wax ku soo kordhiyo laakiin nin waliba wuxuu raadinayaa in 4 sano 5 sano ee isaga uu jooga ee ma garanaysaa meesha uu ka mid yahay in ma garanaysaa bal guri hal guri uu ka dhisto ma garanaysaa laba guri uu ka dhisto bari wuxuu u baxsado biilkiisa uu ka helo markuu 5 sano ka dhameesto meesha qofka meesha markuu wuxuu u aadayo inuu wax dhaco inuu wax hada weey lacagaha marka guriga lagu dhisanayo lacagaha la xadayo yaale waa lacagii shacabka iyo ummadii bulshada ay lahaayeen way ninka mushaarkiisa wuu qaataa mushaarkiisa haduu qaatana guriga dabaqyo iyo magaranaysaa dabaqyo uma dhisto mushaarkiisa waxyaalo qaar uma qabtaan laakiin wax maal dabaqyada lagu dhisanayo waxa la xabsanayo la aruursanayo waa xaq ay lahaayeen dadka shacabka gaar ahaan waa mashruucan hadda Doolow ka dhacay amal way
5 milyan iyo lacag ka badan ayaa lagu soo qaatay deetana wax aanan $50 dhamayn deetana wixii ku baxay $50 ma dhama 5 milyan ayaa qaatay ayaa cunay dadkii deegaanka faa'iidada iyo waxqabadka loo sameeyay dadka deegaanka Soomaalidu dhexdeeda tuuganimadu waa darajo laakiin dunidu waa ceeb iyo facshir iyo caado male iyo sumcad xumi weeye Soomaalay dad muslim baan nahay diin baynu leenahay war waxna qabta ma ahan wax noo wanaagsan ma ahan sharaf iyo qurux iyo cizana nooma ahan